kadib camuud baad gasheen miyaa markii burburkii Soomaaliland ay asaasantay camuud Soomaaliland gelin laakiin waxyaalaha aan nolosha ayaa halgan ayaa bilaabmay markii dalku burburay halgankaas ma bilaabmay sida noloshaadu u sahlayd macnaha qof walba dhinac buu ka eegayay haye marka dalkii markuu burburay meelo shaqo tagay ma jirin oo xafiisyada dawladda furnaa ma jirin laakiin waxa noqotay bal opportunity kale oo jira dhinac ka raadi إذا مركز سلف من النقطة because أنا وقال إنه بنخصه بحنا خبرة ملهين experience ملهين لكن ما حسوق الشقة كنت هي كريسة وقف اللي بقى أي سويديني أنا وحي كلفتين إن أنت تبغى جيرش كف هذا أحمد عرب وأنا سلها روح كبره خصوصا المستقبل وما هو كيس عيدك وشاك تدخل المياه ما يمركي هو روح كول يشتري على الغداء بقى عيال هنشري سجا ووجها وكول يشتري سريبة داكتير أوكي هكذا نقول جودي سريبة هي أيوة كول يشتري dhalinyarada markaa wax ka baranaysay oo hadda Allah naxariista Cabdiwahaab Axmed Hurriyo kala kamid ahaa oo isku kalaasanaysana xataa hadda waa wani loobi isaga Mustafada waxa kamid ah mooyeen loo jiray sanad Allah naxariista uu dhintay waxa kamid ahaa Cabdi Madoobe la hadda magaalada degan yahay group noocaas oo dhalinyaro markaa soo baxay oo markaa dad ka faa'iiday oo nimba fiil mid mechanical buu baran jiray mid weldan ku baran jiray yaa xamada qaar dabkay baran jireen markaa anigu dabkan jeclaan barto laakiin kuma guuleysan because of waxaan u beeray qofka aan la shaqeynayba shaqadiisu way badan marka wuxuu ugu jiray lacagta soo ururay hadii nafta day meesha la socdaana lacag bay dad waxa noqotay finance marka cashier baa noqday cashier marka lacagtaas uu ururin jiray markii dambe waxaan sirinay balbedelo meel kale marka ustaadka ayaan si wax ka baro ustaadka marka MCH ka Central MCH ka ayaa tagtay baan u wareegay oo aan ka soo bilaabay meel wax la yiraahdo macnaha subordinate staff ama auxiliary baan ka bilaabay shaqada shaqo ma ahayn laakiin volunteer baan ku shaqayn jiray si aan rajo uga sugo haddii qof uun chance soo baxo in aniga aan noqdo oo markaan kuyuga ku jiray because marka hore waan waxaad ka shaqaynaysaa taqaana ka bacdi marka dambe marka meeshii lagu geeyay lagu xulanaya marka waan u mahad celinay horta dadkii beriga soo gacan qabtay runtii waayo waxaan ka soo bilaabay auxiliary waxaan ka xasuustaa laba xirsa Bashiir Galmays waxaan ka xasuustaa Faadmo Umar Kaahin waxaan ka xasuustaa Maka Umar Wabar Ifraax Ismaan Reedal baan ka xasuustaa Xasna Khatima waa dadkan ma hadda balaaru lagu hayo runtii uga Saacad Cilmi waan ka xasuustaa Allahumma salli ala Muhammad waa dadkii markay soo gacan qabtay i baray injection ka sida loo bixiyo macnaheedu in qof mudi karo si wanaagsan qofna aan nabulkiisa dhayi karo marka laba shaqad qabanaysa inaad waxna barato exactly uu shaqaahana course wal lagu train gareynaya marka training kale siinaya wuxuu ahaa dhowr miis baa meesha ku jira mid height for weight ka lagu eegaya ilmaha dhererkiisa iyo miisaankiisu inay isleeyihiin marka body mass index baa la yiraahdaa macnaha qofka inuu dhererkiisa iyo wada korayaan iyo miisaankiisa iyo hilibkiisu marka aad eegaysa average-kiisa qorayso kaasi miisku ahaa miis kale waxa lagu eegi jiray marka oo lagu daaweyn jiray ama lagu talaali jiray ciyaalka oo wax loo jiray EPI department ama immunization ama vaccination dadku soo yaqaanaan halkaasina qayb ahayd mid kalena wuxuu ahaa mid lagu eego muxuu ahaa dumarka iyo miisaankooda iyo hooyooyinka uurka lagu ahaa saasuu kala bixi jiray marka laba miisuun baa aniga aadi khusiyay ka dherarka iyo kaas talaalka lagu sameeyay marka talaalka stage fiican baan ka gaaray oo lagu aamini karo inaan runtii perfect ahay marka waxaan aad runtii aan wax ka wada baran jiray meesha laftarkeeda oo aad uga sii xasuustaa Maryam Saateeye waxaan xasuustaa إفراح إبراهيم وأنا حسوستا إفراح إسماعيل جبريل أو يدنا المركب مش محفوظ بالعبد الوهاب تشيرمان لورنشري أو قبل كله فهيم لورنشري جميلة قبل كله نعم وفر بدنا مركب تيم كاسي وها هاي هوستي كشيرن هي اللي سيف تشيل درام فام SCF ومركب مريم جيرمان بحسين شرتي ورم هذا اللي يدلفتر كذا عيقات شوقي عربي ده لورنشري شوقي بكوس واحد قريب كهاير أنا ويران سوق قالوا يستيش في عرب أنا واحد دوري وما كشغال مركي vaccination كان برتي mid gaar ah hadana aad u sii bartay oo la jeclaa inaan anigu bixiyo marka BCG baa la yiraahdaa marka halkan bal iska mid ah garabka waa laga yaabaa bar ku leedahay halkaas talaalka TB da la yiraahdaa marka hadii bacteria ku jirta si geliso nooha muruqa waa laga yaabaa soo dhaado laakiin calaamad inuu qofku yeesho ma lagu talagalay marka waxa laga bixiyaa waxa inta dermal xagga sare laga bixiyaa 45
degree يعني حاجة الأول لقوا بيحن شري سو كاسر حريف نقطة مركب اللي كحين شري هو واحد اللي شري دلا يجي تقسم ميلا إرادية ميلا هسا يا تلاري شري سو مالتها $200 بالسين شري سو حبي ونقول شري $200 إحنا جت إحنا جت شري مركب كده دم بوح على قاعد تقدر كنا محوها ويت اللي يسكت كتيرة مركب مشارب اللي قرأي مشارك اللي قرأ مركب $100 بها هيت بول نقضي أو العفو عن قاضي يعني نقضي مركب استرجل كل شيء وحكوا بريا دينا أتليس مال إسكاسو صاري كرتور شقة تشويس وملي هذا ماشى ميسك وحي على مركب إنا قاضته أو حدد مركب ميل كلوري كرتنا ونسيبها مركب حسن كبلابي مركب دمبه idea دي أنكو بلعب عفمات كوحي يقول رئيسي مثلا مسكرتها business مركب فارماسي مثلا يستي يعني أو يجعلها بورما المركز الحديدة بس واحد فاهم سنة يبلعبن حوجا عفمات كي داوين كي كلا جالشوا مركب qualification فرابدين ما تشيري مركب أو لو قوم حريني because of داينا الدولة قفك كي بس برضو دكتور كسوق قريب مهم هاي مركب فارماسي بان ماشي يكسبي فارماسي مركب أنا واحد صلاها ونشسبل business كوحكوه لكن سالفلي ونقوم العقبة ضمان كهاي ما شاء الله dadkii markaa business ka wada bilowday role model ka dadka ee meel fiican ka gaadhay nolosha waxa kamid ah Idris Aadan Xasan Idris Najaxbaad garanaysaa laga yaabo Maxamed Aadan Miyaad stationery Miyaad stationery Xaji Maxamed Sheekh Daahi geela farmasi ninka iskale Xuseen Nuur Maxamed ninkan ku sheegay oo isaguna ahaa saaxiibkii koowaad runtii oo isaguna farmasiga soo kala dhigto businesska aan isku dhiirin gelin jiray business idea nimankan ku sheegay oo dhan marka iyagu hadda meel dheer bay businesskii ka gaadhay laakiin anigu meel kale aan maray oo aan markii dambe u baxay laakiin iyagana halkan waan ka salaamay waan hambalyeynaya runtii successka ay businesskooda ka sameeyeen marka xagga businesskaan u beeray markii dambe waxaan markii dambe haddana ku fikiray wax businesska ka duwan masii samayn kartaa berigaa waxa ajiib oo jiri kiyo sida biyaha laga dhaansado waa cusbaayeen marka xaafadda marka wali iibin jiray wala sii gedi marka xaafadda waxaan ka sameeyay kiosk anigu aan business ahaan u lahaa lacag badan geliyay laakiin la iibin jiray la gedi jiray biyaha soo markii dambe xoogaa lacag oo fiican baan helay waxaan ku fikiray marka ma samayn kartaa inaad businesska u bedeli karto waxbarasho inaad waayo